السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برتان نقل سعودان ومانكا تيوب برتان كلنا فيسبوك عباس ورشيرسي ما انت وحانيدين ناشيكدي لما قابحوي كن إيو كوابين قيبتيدي الفراتا وحانا إذين سوجيرين دونا أنيقو عباس ورش قيبتي سداحات وحينو مريسي مركي أي دوني ساتري أبايو مانو شكيسي شيكوينكا إحلاسيغا mid ka mid markaas ay Shahrazad tiri waan ka sheekeynayaa hadii boqorka noo ogolaado markuu boqorkii Shahriyar hadalkaas maqlay ayuu yiri bal sheeg aan maqalnay sheekooyinkaas mid ka mid habeenka koobaad Shahrazad waxay sheekadii ku bilowday waxa ay soo gaaray boqor inuu jiray nin taajir oo xoolo badan carruur lahaa wuxuuna ahaa nin aamin sidaas darteed bay dadka xoolahooda ugu dhiiban jireen maalinkii dambe ayuu ninkii safar galay wuxuu socday markii dambe wuxuu harsaday geed si uu u nasto cabaar markuu geedkii fadhiyay ayuu qol u watay kala soo baxay xoolaha timir isagoo bilaabay inuu cuno wuxuuna timirtii lafteeda ku tuuray meel u dhow wax yar kadib waxaa agtiisii ka kacay boor aad u weyn hadduu sii fiiriyay waaba cirfiid aad u weyn oo gacanta ku haysata seef qaro weyn aadna u badan cirfiidkii siduu u soo socday wuxuu kor yimaaday ninkii taajirka wuxuuna ku yiri waan ku dilayaa sidaad wiilkayga u dishay oo kale markaas ayuu ninkii taajirka yiri sideen wiilkaaga ku dilay maba arkine cirfiidkii wuxuu yiri adiga markaad timirta cunaysay laftii aad tuuraysay waxay wadnaha ugu dhacday wiilkaygii oo isla goobtii ku dhintay sidaas darteed qisaas ahaan ayaan ku dilayaa markaas ayuu taajirka yiri aniga kama warqabin inuu wiilkaaga meeshan joogay ee iska kaycafi hase yeeshee jinnigii waa diiday wuxuuna ku adkaystay inuu wiilkiisii ugu qisaasi doono markaas ayuu ninkii taajirka yiri fiideo aniga waxaan gacanta ku hayaa xoolo aad u badan oo ay dad leeyihiin kuwaas oo ammaan ahaan iigu dhiibtay waxaan leeyahay xaas iyo carruur ee ifasax si aan qofba xaqiisa u soo siiyo waxaana kuu ballan qaadayaa markaan qof kasta xaqiisa soo siiyo inaan kuu soo noqon doono si aad wiilkaaga ugu qisaasto hadalkeygana Allah ayaa wakiiliga markaas ayuu jinnigii ka ogolaaday sidii ayuu ninkii ku soo baxay wuxuuna yimid magaaladii uu deganaa isagoo isugu wacay dhammaan dadkii iyo ehelkiisii si uu qof kasta xaqiisii u siiyo markuu dhammaan dadkii xaqoodii siiyay ayuu u sheegay sidii wax u jiraan iyo xaalka halkuu marayo markaas ayay dhammaan qoyskiisii iyo ehelkiisii wada ooyeen iyagoo sugoosiyay aadna ugu xun sidii wax u dhaceen ninkii maadaama uu balan qaaday si uu balantiisii u oofiyo markuu qof kasta xaqiisii siiyay ayuu soo baxay isagoo soo aaday halkii uu jinnigii kula balansanaa wuxuu soo socdaba isagoo karantiisii wato markuu imaaday geedkii hoostiisa ayuu iska fariistay wuuna iska ooyay xogaa kadib isagoo ooynaya waxaa meeshii soo maray oday wata deero wuu salaamay ninkii wuxuuna wareystay wuxuuna ku yiri maxaa kaligaa halkan oo bahla galeen iyo jinnida ku nool yihiin ku fariisiyay oo aad la ooynaysaa ninkii taajirka ayaa ugu sheekeeyay sidii wax u dhaceen markaas ayuu odagii go'aansaday inuusan ka tegin ilaa uu ka ogaado sheekadan halka ay ku dhammaan doonto iyagoo meeshii sidii u fadhiya ayaa waxaa yimid oo wadadii soo maray nin laba ay wata iswaraysi kadib ayay u sheegeen sidii wax u jiraan markaas ayuu asna go'aansaday inuusan meesha ka tegin oo qisada dhammaadkeeda ogaado iyagoo sidii meeshii usii fadhiya ayaa haddana waxaa jidkii soo maray nin baqal wata iswaraysi kadib markii xog warameen ayuu isna go'aansaday inuu sheekada dhammaadkeeda ogaado habartoodii oo meeshii sidii u fadhiya ayaa waxaa u yimid cirfiidkii oo seeftiisii qarada weynaa wata wuxuu soo qabsaday ninkii taajirka si uu wiilkiisii u qisaaso markaas ayaa waxaa hadlay odaygii daarada watay wuxuuna yiri jinniyahow taajkii boqoradow haddii aan kaaga sheekeeyo sheekadana dhex martay aniga iyo deeradan oo aad ka hesho ninkan dhigiisa 3 meelood meel ma ii hibaynaysaa markaas ayuu cirfiidkii yiri haddii ay cajabiso waan ku hibaynayaa markaas ayuu odaygii sheekadii ku bilaabay sidatan
deeradan aad u jeedo waa xaaskayga ahna in adeerteed iyadoo yar ayaan guursaday muddo markaan isqabnay oo waxaana ii dhali weysay ayaan waxaa samaystay jaariyad waxayna ii dhashay wiil aad u qurux badan wejigiisana u ifayo sidii dayax 15aad ah waxba yaanan warkugu daalinin maalintii dambe ayaa safar aaday markaan baxay ayay naagteedii oo sixirka wax ka taqaanay sixirtay wiilkaygii iyo hooyadiisba iyadoo ka dhigtay lo iyo dibi kadibna waxay u dhiibtay ninkii xoolaha ii qaabilsanaa markaan muddo kadib safarkii ka soo laabtay oo aan reerkii imid ayay naagtii ii sheegtay in jaariyadii dhimatay wiilkiina la waayay meel uu jeen ii cirib dhigay aniga arrintaas aad ayaan ugu murugooday maalintii dambe ayaa waxaa dhacday in la gaaray ciidii udxiya ana si aan udxiyo u qalo ninkii xoolaha ii qaabilsanaa ayaa waxaan ku iri lo aad u buuran ii soo qabo markaas ayuu ii soo qabtay lo'dii jaariyadii ahayd markii la ii keenay ayaan fatay oo oysay anigoo yaaban ayaan qalay laakiin waxba way ka soo bixi waayeen kaliya waxay noqotay laf iyo maqaar aniga arrintaas aad ayaan ula yaabay markaas ayaa ninkii xoolaha ii qaabilsanaa ku iri ii keen dibi maadaama lo'dii hore hilib laga waayay balse haddana wuxuu ii keenay wiilkaygii debiga ahaa markii la ii keenay ayuu isna ooyay oo raftay intaan ka yaabay ayaan ku dhahay war iga dibigan ee mid kale ii keen markaas ayaa mid kale la ii keenay oo aan qalay laakiin waxaad ogaataa inta waxaasan dhacaayeen naagteedii wayna daawanaysaa markii sheekada halkaas maraysay ayay Shahrizaad ogaatay in subaxii la gaaray markaas ay sheekadii iyo hadalkii badnaaba joojisay markii ay walaasheed ka yareed ee Dunyazaad tiri maxaa ka macaan badan abaayo sheekadan waxaan jeclaan lahaa inaad noo dhamaystirto markaas ay Shahrizaad tiri haddii boqorka ii ogolaado inaan noolaado sheekadan waan dhamaystiri doonaa habeenka dambe sidoo kalena waxaa idin sii sheegi doonaa sheekada mid ka sii macaan markaas ay boqorkii Shahrizaad isiri waa sheeko xiiso leh ee hadilin ilaa sheekada ka dhamayso sidii ayuuna ku go'aansaday inuusan dilin ilaa ay sheekada ka dhamayso subaxii markii la gaaray waxaa yimid wasiirkii gabadha dhalay oo karfantii wata aad u murugaysan balse markuu ogaaday inay gabadhiisii nooshahay wuu la yaabay aadna u farxay halkaas ha inoo joogto qaybtii afaraad sheekadii la magac baxday kun iyo kow habeen fadlan si aad ula socoto qaybta shanaad ha ka iloobin YouTube-keena inaad subscribe dhahda hana iloobin inaad gambalelka furato si aad ula socoto qaybta xigta hanaga iloobin inaad soo booqato page-keena Facebook aan ku leenahay Abbas Urish Xirsi laga soo saarto beedka mahadsanideen